madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dane oo isaga iyo xubno wafdi uu hogaaminayo ku sugan magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa wada qorshayaal ballaaran oo uu ku doonayo sidii loo kordhin lahaa tirada ciidamada maamulka Puntland ee ku sugan magaalada Gaalkacyo. madaxweyne Dane ayaa 24kii saac ee la soo dhaafay madaxtooyada magaalada Gaalkacyo waxa uu kulamo kula qaadanayay saraakiisha ciidamada amniga maamulka Puntland iyadoo kulankaasi ay qayb ka ahaayeen saraakiil ka socotay maamulka Galmudug oo kulanka ka qayb galaya iyagoo inta badan kulanka looga hadlayay sidii loo xaqiijin lahaa amniga magaalada Gaalkacyo. saraakiisha ka qayb galaysa kulanka ayaa madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dane waxa uu sheegay in tallaabada ballaaran ee la doonayo sidii loogu xaqiijin lahaa amniga magaalada Gaalkacyo in la isku dhafo ciidamada Puntland iyo Galmudug si ay hal mar uga wada qayb qaataan sugidda amniga magaalada Gaalkacyo. si kastaba ha ahaatee arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii dhowaan madaxweyne Axmed Ducaale Geele Xaaf uu waqooyiga magaalada Gaalkacyo madaxtooyada ku taala uu kula kulmay madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dane isaga iyo xubno wafdi ka tirsan maamulka Puntland. waxaana sidoo kale kulankaasi qayb ka ahaa isku dhafka ciidamada maamulada Puntland iyo Somaliland, waxaana taasi ay qayb ka tahay kulamo mas'uuliyiinta maamulada Puntland iyo Galmudug ay ku doonayeen sidii saraakiisha labada dhinac ay uga dhaadhicin lahaayeen inay wada shaqeeyaan labada ciidan maadaama xaaladda magaalada Gaalkacyo ay xilliyada qaarkood ka dhacaan falal ammaanka lagu waxyeeleynayo.